wararkii soo kordhayaynu barnaamijka ku faahfaahinayna intaynu kala maqnayn xaaladda gobolka bariga dhexe ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa hadallo kulul oo ay isdhaafsadeen Israa'iil iyo Iiraan. haddaba Israa'iil oo markan sheegaysa in dagaalka Iiraan dib loogu noqon doono iyo Iiraan oo jawaab kulul arrinka ka bixisay. haddaba marka hore aanu ku hormarno abaaduulaha ciidanka Israa'iil oo goordhow hadlay waxa uu sheegay Israa'iil inay diyaar u tahay in dib loogu laabto dagaal ka dhan ah Iiraan. abaaduulaha ciidanka Israa'iil ninka la yiraahdo Eyal Zamir waxa uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay door muhiim ah markan ka ciyaari doonaan dagaalka cusub ee lala geli doono Iiraan. dhanka kale waxa uu sheegay in ciidamada baddu ay markaa ay si wanaagsan u gudan doonaan waajibaadkooda markan u fiirsada. wuxuu leeyahay markan waxaynu dagaalka xoogga saari doonaa ciidamada badda. ciidanka badda ayaanu markan Iiraan xoogga dhinaca badda ka soo weerari doonaa. waxaa dhahay Israa'iil marka tabar ma ku gaartaa Mareykanka? may isagiyaa baddii wax ku qaadi lahaa. ma Ingiriisiya ku gaartaa? may. ma Faransiisiya ku gaartaa? may. maxay tahay marka baddan la sheegay? marka sheekadaas waa nuusan tahay. laakiin markiiba waxa uu soo jawaabay ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ah. haddaba waxaa la yidhi Caraaqji wasiirka arrimaha dibadda Iiraan waxa uu sheegay waynu ka jawaabi doonaa u dhahay fal kasta oo gardarro ah oo nala ku soo qaado. wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji waxa uu sheegay ciidankoodu inay markaa iska difaaci doonaan weerar kasta oo kaga yimaada sida uu yidhi kuwa cadowga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Caraaqji waxa uu sheegay ciidamadeenu waxay qaadayaan weeraro difaac ah oo ka dhan ah goobaha uu Mareykanku joogo ama uu doonayo inuu ka weeraro maraakiibta rayidka ah ee maraya badda iyo in uu ku xadgudbo xabad joojinta. waxaan si degdeg ah oo go'aan leh uga jawaabi doonaa fal kasta oo gardarro ah oo annaga naga dhan ah ee nala ku soo weeraro ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Caraaqji. ujeeda marka hadallo kulula marka la isdhaafsanaya ninkaasana yeelaya kana yeelaya aday ku taala. marka waxa leeyahay nooc min al tactic waa tactico waay. nin la wareysanayo aad uga helay wareysigiisa General Ilyas Al-Hanna alirada waa muxallil askari nin arrimaha militariga falanqeeyo waay. jazeera wareysanaysa waxa la yiri hadalka abaanduulaha ka war ninka la leeyahay Zamir hadalkan uu leeyahay badda iyo maraakiibta iyo wuxuu yiri horta inaad mid fahamtaan isku daya. annagu waxaan yiri rag military isaguna waa general aniguna waxaan ahay general. okay nin general ah khidadiisa iyo dagaalkiisa iyo meesha uu wax ka weerarayo ma sheeguna. dhageystayaa baddanka kisana yeela maraakiiba isticmaala marka wax ka jira maluna. Iiraan waxay la timid uu maqlay gantaalo halis badan oo difaaca hawada. marka wuxuu rabaa inuu annaga baddan ka imaanayna badda inay xoogga saarto. marka waxa annagu fahamsanahay yiri generaalada Iiraan miyaanay fahamsanay yaa loo sheegaa waxaas. marka nin dhan oo abaanduulaha ciidanka Israa'iil dagaalkan ku laabanayna markan badda xoogga saarayna bad may haystaan u dhayn markan ayaga dhanba hawada ku noolyiin diyaarada dagaal bas isticmaalaan. laakiin waxa khalkhal ku jira ka cabsanayaan gantaalahan Iiraan way la timid lalay. marka wuxuu yiri dadkii marka wuxuu khaldaa ra'yul caamkii uu khaldaya. marka taas day wax caam waa la ogyahay yiri Iiraaniyintuna kulli waa ogyihiin saanagu aqli u leedahay ayaguna aqli ka badan u leeyihiin maadaama dagaalkii ay ku jiraan. marka hawsha sidaas uu ku tacliiqay. dhanka kale ninkii Trump ahaa isaguna wareysiyo isdaba jooga bixinaya saacadii la soo dhaafay wuxuu ka hadlay arrinta Netanyahu inuu sheegay inuu qof waalan oo kale yahay oo maaragtay wax wuxuu rabo iska sameeyo. dhanka kale wuxuu ka hadlay haddana ninka Trump leeyahay aayatullaahiga mujtaba xataa waa la kulmaya uu leeyahay Iiraan wada hadalaa noo socdo leeyahay way diidu leeyahay hub nuclear inay samaysato wax alla wuxuu rabo iska sheegay. mararka qaar waa yaabaysaa ninka wuxuu ku hadlay warkuu shala sheegay midka maanta sheega ka hor imanaya
midka maanta u sheega beri midka u sheega lama socdo marka sheekada marka waalidaa socoto dhanka kale Netanyahu ayaa isaguna hadlay wuxuu leeyahay Iiraan weli ma go'aansanin inay heshiis ka gaarto nuclearkeeda Mareykanka waa la goynayo ninka Trump waa loo cag wareejinayo halkan odaga ma fahamsano kula Iiraan marka arika maba ogolaaninba weli nuclearkeeda inay haysatay rabtaa sidee ku dhici kartaa marka hawshaas halkaas ay marka maraysaa dhanka kale waataan barnaamijkeygii hore ku soo qaadanay idinkuna aad la socoteen in Mareykanka saldhigyadiisa Kuwait iyo Bahrain iyo ku yaalay si fiican nagta looga saaray Mareykanka waa ka hortagnay gantaali saana yeelna soo laha Kuwait markii dambe sheegay hadda Kuwait waxay leedahay naag Hindiya oo dadka ku nool Kuwait ayaa dhimatay 60 dad ku dhowna way dhaawacmeen khasaaraha droniska iyo gantaali maanta lagu weeraray Kuwait gaar ahaan airport marka Mareykanka wuxuu sheegay maxaa weeyay waaba weerarana kale gantaalaan Mareykanka dhaxan isaga duubay kana sameeyay maxay tahay beesha media xataa lagu dagaalama media barka beetiya baa shaqay weys Kuwait waxay leedahay nagtaabana la ka saaray maxay tahay waxa uu ninka sheegay haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay goordhaweyd Al Jazeera ay qortay ciidamada Kuwait waxay sheegeen inay dhimatay haweeney jinsiyadda Hindiya haysata oo iyadu deganay dalka Kuwait sidoo kalena dad fara badan inay ku dhaawacmeen oo marka weerarkii maanta dhacay sida ay goordhow faahfaahiyeen ciidamada Kuwait 13 gantaal oo nooca balastiga iyo 17 diyaaradood oo drone ayaana la ku soo weeraray dheen maanta marka khasaaraha dhashay 5 mar ayaa maanta difaaca hawada uu difaac galay oo Siiriga digniinta Kuwait laga maqlay meel kasta qayladaas laga maqlay oo maartay iska jirayda ayaa laga maqlay haddaba wararka soo kordhay waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka hadlay wuxuu leeyahay maanta kulan kale yeelan doonaan Lubnaaniyiinta dawladooda iyo Israa'iil go'aamo inay ka soo baxaan waa la filayaa muhiim ah shirkii ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka horay ugu sheegay shirkaas Hezbollah ma ogola waa aqaan sida loo qabanayo taas marka mushkiladeeda ay leedahay marka asagu rajo ka muujinay wuxuu leeyahay go'aamo soo bixi doona midda kale Hezbollah 3 weerar oo kala duwan ayay waxay yiraahdeen ayaynu saacadihii la soo dhaafnay ku qaadnay goobo ay joogeen ciidanka Israa'iil marka waxa leeyahay Hezbollah aad waxay isaga ilaalinaysaa dadka shacabka ah meelaha ay joogaan Yahuudda inay weerarto iyagu waxay target ka dhiganayaan oo bartilmaameed ka dhiganayaan bas saldhigyada iyo ciidanka Yahuudda bas ay qaramsanayaan intaas waxay diidayaan alwulee inay Israa'iil marmarsiyo u hesho dad reeydan la kalaay inta baxdo bambooyin dad masaakiin oo Lubnaaniyiin isaga layso caasimadda iyo dhulka tagto marka nimankan waxay taageen kuwaanaba naga badan kuwaan xuduudka ka soo gudbay oo Lubnaan soo galay ayaanu maalin walba 200 aynu qaramsanaynaa iyaga marka dambe iska carari doona marka wararkaas ayaguna soo kordhay qaybaha dambe xaaladdu marka way kacsantahay Lubnaan wali dagaalkii uu socdaa wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idin kula socodsiin doonaa like gareeyo share gareeyo barnaamijka meel kasta aad joogtaan intaan markale kulmayno diyaalayd ma iyo barnaamijyo kale